Assalaamu calaykum. Waa mar kale iyo barnaamijkeennii taxanaha ahaa ee ma ogtahay. Ku soo dhowaada mawduuceena maanta. Ma ogtahay daawadow in xayawaanka ayax-badeedku yahay xayawaanka keliya ee madaxiisa ku leh wadnihiisa? Ma ogtahay in qofku marka uu hindhiso uu istaago wadnihiisu, sidaa daraaddeedna uu nabigeennu calayhi salaatu wassalaam yidhi dhaha alxamdulillaah? Ma ogtahay daawadow in afka Soomaaliga uu ka mid yahay saddexda luqadood ee ugu hodansan adduunka oo dhan? Ma ogtahay daawadow in caalimka helay dawada aydiska uu yahay Cabdimajiid Saydaani oo u dhashay waddanka Yemen? Ma ogtahay in jabhaddii ugu horreysay ee Afrikaan ah ee dagaal hubaysan kala hortimid gumeysiga reer Yurubka ay ahayd daraawiishtii Sayid Maxamed Cabdille Xasan? Ma ogtahay daawadow in qofku maalintii neefsado 23,000 oo jeer? Ma ogtahay in ninkii ugu horreeyey ee magaalada barakaysan ee Maka keenay asnaamta inuu ahaa Camri ibnu Luxay al-Khusaaci? Ma ogtahay daawadow in mujaahid Sayid Maxamed Cabdille Xasan dhashay sannaddii la magac baxday Gubaysane, kuna dhashay magaalada Buuhoodle? Mise ogtahay in Sayid Maxamed uu jihaad 20 sano socday la galay gumeysigii Ingiriiska? Ma ogtahay daawadow in qofku marka uu dhinto ay xubnihiisa qaar sii shaqeeyaan, waana kuwan: qalbiga 10 daqiiqo kadib dhimashadiisa, caqliga 20 daqiiqo kadib dhimashadiisa, indhaha 4 saacadood kadib dhimashadiisa, haragga 5 saacadood kadib dhimashadiisa, lafaha 30 saacadood kadib dhimashadiisa. Ma ogtahay daawadow in waddanka Shiinuhu 2012 soo saaray sharciga u samafalka waalidka, kaas oo u saamaxaya waalidka in uu ashtakeeyo carruurtiisa aan soo booqan? Yaab, innagana diinteenna ayaana fartay. Ma ogtahay daawadow in dhakhtarkii ugu horreeyey ee sameeyey qalliin uu ahaa caalimkii Muslimka ahaa ee la odhan jiray Zahraawi? Ma ogtahay in libaaxu ka baqo codka dhiigga? Ma ogtahay daawadow in dowladdii ugu horreysay ee dirta dayax-gacmeed ay ahayd dowladdii Midowgii Sofiyeeti? Ma ogtahay daawadow in dadka jecel midabka casi ay yihiin kuwa dabeecad ahaan isla weyn? Ma ogtahay in xayawaanka diinku noolaan karo biyo iyo cunto la'aan muddo dhan 20 casho? Ma ogtahay in ciddii ugu horreysay ee magaca Qaramada Midoobay bixisay uu ahaa caalimkii Muslimka ahaa ee Al-Farabi?